أشرقت نفسي بنور. السلام عليكم. baasaboorada ugu teeda wanaagsan caalamka inuu ku eegi doonaa qiimeyn soo baxday 14 Juun 2020 bogoox ka qoraa arrimaha socdaalka caalamka ee Hanley Passport Index oo ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaadyada caalamka marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IATA ayaa qiimeyn ku sameysay baasaboorada caalamka kuwooda ugu teeda wanaagsan ee la qadariyo dadka wataana ay si sahlan ugu safri karaan. baasaboorka dalka Japan ayaa noqday kan ugu teeda wanaagsan caalamka oo dadka haysta ay si fudud ugu safri karaan daafaha caalamka. dadka haysta baasaboorka dalka Japan ayaa dalku la'aan ku tagi kara 191 dal oo caalamka waxaana dalku galka ay ka heli karaan muwaadiniinta u dhashay dalka Japan halka ugu horeysa ay ka galaan wadamadaasi. waxaa muuqata in qiimeynta la sameeyay ay ugu horeeyaan dalalka qaaradda Aasiya waxaana kaalinta labaad galay dalka Singapore. dadka haysta baasaboorka dalka Singapore waxay si fiisa la'aan ku tagi karaan in ka badan 190 wadan oo caalamka halka kaalinta saddexaad ay ku jiraan dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo muwaadiniinta u dhashay wadamadaasi ay si bilaa fiisa ah ku tagi karaan 189 wadan oo caalamka ku yaala iyadoona dalku galka laga siinayo muwaadiniinta u dhashay dalalkaasi halka ugu horeeya ay ka galaan wadamada caalamka. dalalka Yurub ayaa sidoo kale soo galay kaalimaha ugu horeeya waxaana kaalinta afraad ku jira dalalka Finland iyo Spain. dadka u dhashay dalalkaasi ayaa fiisa la'aan ku gali kara 188 wadan oo caalamka ku yaala halka dalalka Luxembourg iyo Denmark ay soo galeen kaalinta shanaad. dadka u dhashay dalka Luxembourg iyo Denmark ayaa si sahlan ku gali kara 187 wadan oo caalamka ku yaala. Faransiiska iyo Sweden waxay ku jiraan kaalinta lixaad. dadka u dhashay Sweden iyo France waxay fiisa la'aan ku gali karaan 186 wadan oo caalamka ku yaala. waxaa kaalinta toddobaad ee dalalka ugu baasaboorada wanaagsan ku jira Netherlands, Ireland, Australia. muwaadiniinta u dhashay dalalkan ayaa fiisa la'aan ku gali kara 185 wadan oo caalamka ku yaala. dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa la sheegay inay hoos uga dhaceen kaalmihii horeeyay ee ay kaga jireen dalalka ugu baasaboorada wanaagsan caalamka. inkasta oo dalka Britain 5 sano ee la soo dhaafay uu ku jiray dalalka ugu baasaboorada wanaagsan sanadkan waxa ku yimid hoos u dhac ku yimid dalka Ingiriiska ayaa lagu tilmaamay jahawareer ka dhashay ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain. waxaa kaalinta sideedaad ku wada jira Ingiriiska, Mareykanka, Norway, Greek iyo Belgium. dadka u dhashay dalalkaas ayaa si fiisa la'aan ugu safri kara 184 wadan oo caalamka ku yaala. kaalinta sagaalada wadamada caalamka ugu baasaboorada wanaagsan waxaa ku jira wadamada New Zealand iyo Malta. muwaadiniinta u dhashay dalalkan ayaa heli kara dalku galka 184 wadan. kaalinta tobnaad ee wadamada caalamka ugu baasaboorada wanaagsan waxaa ku wada jira wadamada kala ah Jamhuuriyadda Czech, Canada iyo Australia. muwaadiniinta u dhashay wadamadan ayaa heli kara dalku galka 183 wadan. fadlan haddii video ku cajabay like saar haddii aad nagu cusub tahayna subscribe gambaleelka ogeysiiskana taabo si video kasta aan u soo gelino aad noola socotid. fadlan wixii fikir commentiga nagu reeb. mahadsanidin. يا إلهي خذ بقلبي من رشا.